Adna Aadan Ismaaciil waxay heshay abaalmarinta ugu weyn ee caalami ah ee abid la siiyo haweeney Afrikaan ah. Waa maxay abaalmarintaasi? Maxay tahay sababta lagu guddoonsiiyey abaalmarinta? Fadlan daawade, nagu soo biir, siina sheergare muuqaalkan, laagtana ha ka hilmaamin. Waa maxay abaalmarinta Templeton Prize? Abaalmarinta sanad waliba la qaato oo la abaalmariyo aqoon-yahanada aqoontooda ugu faa'iideeya bulshada, ha noqoto aragti, soo saaris, cadaaladda bulshada iyo nabadda. Abaalmarinta Templeton waxaa la aasaasay sanadkii 1972. Waxaa loogu magac daray aas-aasaha John Meeks Templeton oo ah ganacsade dhaqaale oo u dhashay Mareykanka, kaasoo doonayo inuu horumariyo aqoonta aadanaha ee caalamka, iyagoo loo marayo habab badan oo aqal-gal ah iyo aragti ku saabsan horumarinta nafleyda. Sidoo kale wuxuu sheegay aaminaadda ruuxiga, dhiirigelinta wax soo saarka nafleyda in uusan ka yareen qeybaha kale ee dadaalka cilmi baarista. Templeton wuxuu qeexayaa in boorsada abaalmarinta had iyo jeer ay ka sareyso abaalmarinta Nobel Prize. Runtii, sanado badan abaalmarintani Templeton waxaa loo maleynayay inay tahay abaalmarinta sanadlaha ah ee ugu weyn adduunka oo la siiyo shaqsi. Sanadkii 2009, qadarka hadiyadeed lacagta waxay gaartay 1.5 milyan oo ay bixiso hay'adda John Templeton oo la aasaasay sanadkii 1987. Qaadashada abaalmarinta Templeton waxaa doorta koox ka kooban 9 xubnood oo garsoorayaal ah, kuwaasoo darajooyinkoodu ay kala yihiin hogaamiyayaal siyaasadeed oo kala duwan, culmo-diin oo dhinac waliba, iyo aqoon-yahano. Abaalmarinta waxaa markii hore la siiyey dadka ka shaqeeya arrimaha diinta. Waxaa la siiyey soorada loo yaqaano Mother Teresa oo ahayd qofkii ugu horreeyay ee guuleysta. Sanadkii 1973 waxay ahayd Katoolig Roomaan ah, shaqaale samafale. Inkastoo xubin ka mid ah bulshada sayniska ay dhaleeceeyeen abaalmarinta si ay u burburiyaan farqiga u dhexeeya diinta iyo sayniska, laakiin 1980yadii baaxadda ayaa la ballaariyay oo waxaa lagu daray dadka ka shaqeeya qeybaha sayniska iyo diinta. Laga bilaabo 1990yadii, abaalmarinta ayaa si isa soo taraysa loo abaalmariyay. Ilaa sanadkii 2001, magaca abaalmarinta wuxuu ahaa Templeton Prize ee horumarinta diinta, iyo sanadkii 2002 ilaa 2008 waxaa loogu yeeraa abaalmarinta Templeton ee horumarinta dhanka cilmi baarista ama helitaanka xuquuqda ruuxa. Tan iyo markii ay bilaabatay abaalmarintani, waxaa guuleystay ilaa 50 ruux oo ay ka mid tahay Adna Aadan Ismaaciil. Waxay heshay abaalmarintii ugu weyneed ee caalami ah ee abid la siiyo haweeney Afrikaan ah oo shaqadeeda waa kalkaaliso ama umuliso firfircoon, waxayna ahayd haweeneydii ugu horreysay ee wasiir arrimo dibadda ka noqota Somaliland. Sanadkii 2003 ilaa 2006 waxay hore u noqotay wasiirka daryeelka qoyska iyo horumarinta bulshada Somaliland.